waxaynu idiin soo gudbinaynaa qisada 33 nin ee buurta ku duntay dalka Chile sanadkii 2010. sheekadan waxaa ku gadaaman duniduna ka baratay cashiro waaweyn oo ku saabsan hogaaminta, hal adeegnimada, ilaalinta sumcadda bulshada, qarinta sirta, turaalaha, dulqaadka, adkaysiga iyo nafqaybsiga. 32 nin oo raggan ka mid ah waxay u dhasheen dalka Chile, halka ninka 37aadna uu u dhashay dalka Bolivia. dhammaanba nimankani waxay ahaayeen khubaro iyo baadhayaal qodob macdanta una babacdhiga qodista godadka iyo buuraha waaweyn. 5 bishii Agoosto ee 2010 maalin khamiis ah, iyagoo ka shaqeynaya 2300 oo fiid oo dhulka hoostiisa ah, meel macdanta kobarka iyo dahabka laga qodo oo loo yaqaan Sanchez Copper Mine, waxaa ku soo duntay buur culeyskeeda lagu qiyaasay 770,000 oo tan, kana dheer 550 fiid. buurtaas ku duntay nimankaasi waxay laba jibaar ka cusleed sarta dheer ee New York ee loo yaqaan Empire State Building. taas macnaheedu wuxuu ahaa in ayna suuragal ahayn in si dhaqso ah looga soo saaro 33 nin godka ay ku jiraan. dhibaatada ugu daranna waxay ahayd korontadii oo gooday, tumbooyinkii hawada sifeynayay oo burburay, qalabkii ay dibadda kula hadlahaayeen ee sida taarka iyo fooniyaha oo go'ay, iyo cunnada ay heli kareen oo ku filneed 2 ilaa 3 maalin oo kali ah. 33 nin oo ay noloshu ku adkaatay, arrintuna ku cuslaatay kolka ay ka war heleen in buurta ay ka hooseeyaan ku soo duntay iyaga oo god ku jira. markii hore waxaa xukumay oo agaasimo u ahaa in la yiraahdo Luis oo 54 jir ahaa, laakiin markii uu godku ku dumay ee gooridu u soo dhawaatay wuxuu ka mid noqday kuwa ugu cabsida badnaa oo salka ay dhulku dhuftay. talada 33 nin waxaa la wareegay Mario Gomez, 63 jir rugcadaa ah oo ku baraarujiyay kooxdaas in ay isaga maqlaan maadaama uu xagga da'da ugu weyn yahay. wuxuu ku taliyay in tallaabo kasta oo la qaadayo cod loo qaado, oo haddii 16 iyo 16 la kala noqdo 32 cod in la raaco qolada uu raaco qofka 33aad ee dheeriga ah. ninkii hogaamiyaha ahaa waxa uu raggii weydiiyey yaa caafimaadka wax ka yaqaana. waxaa la helay nin la yiraahdo Yoni Borges oo 50 jir ah oo aqoonta caafimaad ee uu yaqaanay ahayd oo kaliya ah inuu muddo sanad ah u xanaanayay hooyadii oo waayeel ah, loona tababaray inuu xaaladdeeda caafimaad ka warqabo. ninkaas waxaa loo xil saaray ka warqabka 33 nin xaaladooda caafimaad. dadaalkii uu ninkaasi muujiyay darteed waxay kooxda u bixisay oo ninkaasi ugu magac dareen filin caafimaad ku saabsanaa oo musalsal ahaa oo ka bixi jiray telefishinada Mareykanka oo loo yaqaan Dr. House. nin kale oo la Charles Hardwick oo da'diisu ahayd 54 jir oo isagu ahaa nin Bible-ka wax ka yaqaana oo kiniisadaha ku xidhnaa, waxay u doorteen wadaadka xagga diinta, baryada Ilaahay iyo wacdiga u qaabilsan. oo Ilaahay waa kay noo sheegay kuwa gaaloobay haddii ay xaalad geeri u dhow soo wajahdo inay Ilaahay baryada u kaliya yeelaan, markuu badbaadiyana ay meeshoodu xumeed ku laabtaan. Ariel Tacona 90 jir ah markii magaalada joogayna aad ugu fiicnaa Facebook, kombiyuutarada iyo smartphone-nada, waxay u xil saareen inuu qoro u ururiyo dhacdo kasta oo wanaagsan, mid xun oo ceeb soo jiidaysana uusan qorin, si qoraalkaasi dhimashadooda kadib haddii la helo ay sumcad ugu noqoto. nin kale waxay u doorteen gubaabada kaftanka iyo kicinta si cabsida looga baxo. odayga hogaamiyaha noqday waxa uu magacaabay 2 nin oo askar hore ahaa si ay u noqdaan booliska cusub ee dawladda ay gud ka dhex samaysteen, oo waxa labada askari amar lagu siiyey in ninkii dhibkeena ama amar qaadan waaye ay xidhaan. ninkii markii hore agaasimaha meesha ka ahaa ee Luis Ares waxay u xil saareen qaybinta cuntada iyo dawooyinka iyo inuu codka iyo talada kooxda ururiyo. godka dhexdiisa ceebo fara badan baa ka dhacay. rag akhyaar ahaa ayaa cabsidii inta ay ka badatay isku dhex yaacay. qaar baa kaadiya saxarada ceshan waayey, kuwa catowgoodii iyo waawareedoodii laga seexan waayey. qaar baa xaalada sir qarsoon u ahaa dibadda keenay. mid raggaas ka mid ah ayaa ka sheekeeyey inuu saaxiibkiis hebel xaaskiisa u dabamari jiray. mid baa ka sheekeeyey dhowr mar oo saaxiibadii wax ka xaday. mid kale ka sheekeeyey inuu farxumeeyey cunug yar oo deris la ahayd. sababta ay raggan uga sheekeynayeen dambiyadoodii waxay ahayd in haddiiba ragga qaarkood nolol dibadda ugu baxaan inay cafis uga dalbadaan saaxiibadii ay dunida ku khayaameen. madaxdii godku waxay go'aamiyeen in wax kasta oo xun oo godkan dhexdiisa ka dhacay inaan dibadda loola bixin haddiiba la noolaado. odaygii wuxuu amray in meel isugu keeno cuntada ay heli karaan oo dhan. cuntadiina waxay noqotay 1 qasaac oo kalluun salmoon ah, 1 qasaac oo tufaax jarjaran ah, 1 qasaac oo digir ah, 18 qasaac oo kalluunka tuunada ah, 24 qasaac oo anaha fadhiya ee qasta ah oo 8 ka mid ah waqtigoodii dhacay, 93 kartoon oo buskud ah, dawooyin kuwa dhacay u badan, 10 caagadood oo biyaha yaryar ah, iyo haan weyn oo biyaha matoorada lagu qaboojiyo ku jiraan oo ciid iyo olyo ka buuxdo oo aan cabitaan loogu talagelin, laakiin haddii dantu khasabto in la cabo lagu khasban yahay. maalmihii ugu horreeyay waxa la qoondeeyay in haddii ninkiiba 24 saac hal mar la siiyo koob biyo ah oo lagu dhex daray nusqaado tuuna ah
si maraq looga dhigto 2 xabo oo buskud ah iyo hal cantuugo oo caano la qasay ah inay cuntada ku filaanayso hal usbuuc. laakiin dhowr maalmood kadib waxa la ogaaday in godka lagu jiri karo muddo bilooyin ah, sidaas darteedna rajadii in la badbaado laga qabay ay sii adkaatay. 2 usbuuc markii ay god ku jireen, isku celcelis nin walba waxaa ka lumay culays dhan 20 pound. qaar baa socodku dhibay, qaar baa maqaarku lafta ku dhigay, xanuuno kala duwan way ka qaadeen godka dhexdiisa. nibankani markasta dushooda waxay ka maqli jireen mashiinada buurta ka koraysa lagu daloolinayo. markasta oo dhawaaqa mashiinadu istaago, ragga farsamayaqaanada ah ee buurta kor ka daloolinayana ay guuldaraystaanba, kooxdan hoosena dhimashada ayaa u soo dhawaata. waxay soo gaadheen heer 2 maalmoodba ninkiiba hal mar la siiyo xabad buskud ah iyo biyo ciid iyo olyo miidhan ah. maalintii 16aad xabad tufaax ayaa inta 2 loo kala jeexay, jeex meel la dhigay, jeexi kalena waxaa loo qaybiyay 3 keenin, mid kastana waxaa la siiyey in yaroo cidida leeg. qaybta koowaad ee qisaduna halkaas ay noo joogto.